madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan markuu arkay dastuurka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya qodobka 48aad farqadiisa labaad iyo qodobka 54aad farqadiisa koowaad markuu la tashaday baarlamaanka dowladda koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay soo jeedinta baarlamaanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan oo ku saabsan baahida loo qabo isku shaandhayn golaha wasiirada oo aqoon iyo karti ku salaysan markuu garowsaday howlaha baaxadda weyn ee shacabka koonfur galbeed ka sugayeen xukuumadda wuxuu xiriiriyay magacaabidda xubnaha golaha wasiirada wasiiru dowlayaasha wasiir ku xigeenada xukuumadda koonfur galbeed Soomaaliya kow Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur wasiirka garsoorka labo Madoobe Nuno Maxamed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta saddex Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan wasaaradda maaliyadda afar Maxamed Xasan Fiqi wasaaradda beeraha iyo waraabka shan Xasan Xuseen Maxamed wasaaradda amniga gudaha lix Aadan Xasan Maxamed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha toddoba Isaaq Cali Subag wasaaradda caafimaadka sideed Cabdinaasir Cabdi Caruush wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga sagaal Cartan Cabdi Ibraahim wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada toban Xasan Cabdi Maxamed wasaaradda warfaafinta wacyigelinta bulshada wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koob iyo toban Injineer Maxamuud Xuseen Caliyow wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda laba iyo toban Axmed Maxamed Bare wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saddex iyo toban Rooble Sheekh Xasan Cabdiraxmaan wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha afar iyo toban Cabdullaahi Cabdi Cumar wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha shan iyo toban Cabdullaahi Aadan Axmed Balaag wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka lix iyo toban Cabdiraxmaan Cusmaan Malaaq wasaaradda macdanta iyo batroolka toddoba iyo toban Iimaan Cali Cabdi wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda sideed iyo toban Dr. Mustafa Xaaji Nuur wasaaradda garsoorka wasaaradda gargaarka iyo wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka sagaal iyo toban Maxamed Abuukar Cabdi wasaaradda waxbarashada labaatan Cabdullaahi Sheekh Xasan wasaaradda dastuurka koob iyo labaatan Injineer Saalax Sheekh Cusmaan wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska laba iyo labaatan Maxamed Cabdiraxiin Nuur wasaaradda xanaanada xoolaha saddex iyo labaatan Warsame Maxamed Dhaqane wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afar iyo labaatan Nadiifa Armi Cabdullaahi wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka wasiir dowlayaasha kow Maxamed Cabdullaahi Mursal wasiiru dowlaha madaxtooyada labo Faadumo Xuseen Abuukar wasiiru dowlaha arrimaha dib u dejinta qaxootiga iyo diyaasbaraha wasiiru dowlaha arrimaha dib u dejinta qaxootiga iyo diyaasbaraha saddex Mawlid Xasan Sheekh Axmed wasiiru dowlaha qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga afar Cabdullaahi Maxamed Aadan Farey wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose shan Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Cabdi Baraf wasiiru dowlaha amniga lix Cumar Mursal Yaxye Bongo wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska toddobo Macallin Maxamuud Maxamed wasiiru dowlaha bay'ada sideed Yuusuf Cabdinuur Suur wasiiru dowlaha dekedaha iyo gaadiidka badda sagaal Abba Aawow Suufi Cafaan
wasiiru dowlaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha wasiir ku-xigeenada kow cabdulaahi mursal xuseen wasaaradda garsoorka labo xuseen cali macalin wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta saddex cabduladiif maxamed cabdulaahi wasaaradda maaliyadda afar nimco nuur cali wasaaradda qorshaynta iskaashiga iyo maalgashiga shan maxamed mucallim cabdulle wasaaradda beeraha iyo waraabka lix cabdirasaaq cabdi aadan wasaaradda amniga gudaha toddoba maxamed cali calow gaani wasaaradda tamarta khayraadka biyaha sideed cismaan cabdi muuse wasaaradda caafimaadka sagaal cabdixakiin faarax shandile wasaaradda boosada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada toban cabdisalaan cabdulaahi yalaxow wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada koob iyo toban cabdulaahi cabdulle xasan wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda laba iyo toban jibriil sheekh luqmaan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta saddex iyo toban bashiir sheekh cabdi ciye wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha afar iyo toban maxamed xaaji ibraahim wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha shan iyo toban cabdulaahi macalin xasan cali wasaaradda gaadiidka cirka dhulka lix iyo toban injineer axmed maxamed aadan wasaaradda macdanta iyo batroolka toddoba iyo toban aadan maxamed cusmaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda siddeed iyo toban binti ibraahim cali wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka sagaal iyo toban jibriil maxamed aadan wasaaradda waxbarashada labaatan moxamed cali maxamed shuute wasaaradda dastuurka kow iyo labaatan cabdulaahi cabdiraxmaan ibraahim wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska laba iyo labaatan yuusuf aadan guddaaye wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa saddex iyo labaatan cabdisalaan cabdulaahi baasey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha afar iyo labaatan faaduma cabdiraxmaan moxamed wasaaradda haweenka iyo xuquuq insaanka xeerkan wuxuu dhaqangalayaa marka uu saxiixo madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan haddana waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan